السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن صاحب بيان وحن رجينا في عنتهين هدو إلهي ساكنا وحن نشرح الدونا أما إنه قاعد ديك الدونا ما يدي الصومالي ذا متكملة وأن رجينا إن الحكمة بدن كفائدي دونت أما هذا سوحي كل هذا هاي ننكلي جنتي شيش دكتي ينين كلي دوداي غراماي نلاقي ما قوليست هاقول تري نين كلي غنتي ينين كلي غراماي من نلاقي ما قوليستو غناتين محل يدهدا غرامت محل يدهدا كانت نين كلي غنتي waxa laga wadaa nin keligii sheesh dhigtay nin keligii garamayna saanu sheegay nin keligii dooday sidee u doodayaan seese u ganataynayaan ganatayn waxa laga wadaa nin keligii istababaray sheesh dhigtay qoriga fahmay sidii wax loo dilo iyo sidii wax maartay wax loogu dhufto nin adduunka jooga oo aan garanin waxa soo socda waxa joogana ma garto mama waxay ahayd qof aan garanin waxa soo socda iman doona waxa joogana ma garto oo qofku ma urku baala maya saadalna qiyaasaya waxa kale la yiraahdaa biyo intaynay ku soo gaadhin ayaa la iska moosaa waxa kale la yiraahdaa khayr wuxuu kuma yeelaa shar u tooghay u diyaar garow shar asagoo taa ka qiyaas qaadanaya ayuu qofku wuxuu qaadanaya soo gadanaya qori xusleeyahay khayr hadaad ku jirto sidaan aad ahaato dee waaba ku fiican tahay hadduu shar yimaado say isu difaaci lahayd qori buu qaatay aanka horeysa xabada warsiridayay dumu ku shishay bow meelay martay muu garanay saxdu sida in la ka war cadawga ugu horeey soo waro ku riday cirka gasho takay xogtee srid yiraahdo waa laga gaarsiinaya Sooma ama qoriga waa laga qaadan ba inta raha laga maro ilan waxshi waa islaan baa tiri leeydi intay qori show li wax ku fiiqday fargadii xoolahan barin baan malayno oo u dhicay tiri war dhow alla tibay dhaantay sidaas uu noqonaya Sooma qori waa tib u dhaamaysa markuu dadweynaha ku riday la waayo haddana ku riday ag dhigo marka uu dadmadii uu la helaya wuxuu wadana biladay meel saaraya biladay marad wax toonaba biladayaas marka uu dadka bartan ka dhufanaya uu ka sii soconaya fircaagu meel saaraya nin noocaas ah oo ilaa 3 bilood 4 bilood xabad ridayay shiish dhiganayay xabadiis dhulkaba aan ku dhacayn dhulkaba sida loo saxda garanaya qaacidada ciidamada loo dhigay waxay tahay arag oo yaan lagu arkin maqal oo yaan lagu maqlin dil oo yaan lagu dilin qaacida noocaas oo jeexanaya waxaad aragto hadintoon xabas ugu ridaay hadinta ninba waxa loo bixiyay wadka lahay haduu qoriga qaato oo aroortii ka laho waxmu soo dili marka nin noocaas oo wadka lahay ah ninki soo doonta asagoon baa dhiman in difrinimo qaadam mooyee marka nin keligii ganateeyay waa nin keligii wax isbaray ninna kama guuleysan karo xeeshii dagaalka oo dhan iyo sidii qori loo ridi lahaa oo dhan ayuu yaqaanaa marka ninkan khayr loola taga mooyee sharax laga ma helayo saanad ya shan ku fiican tahay waa koow taale hadal yaani waa maray talaadna waxa qaybta kalaad waxay ahayd nin keligii garamay keligii dooday niqaashay awl kasto u taala insan geed weynaha tagin iyo meesha looga yeedhayo maxkamadda tagin garsoorayaal iyo usan la kulmin keligii niqaashay dooday tan lagama gar helo sidee waxa la yiri hawl baa lagu haystaa asna uu og yahay baad la doono hawsha marka laftiisu uu dafirayay oo wuxuu islahaa dad diido ha kaaga soo bixi inta meeshii tagin hayr meel fadhiistay وكسو قاضي إنه فرديو محكمة ديبا أما ماشي اللي هو كرمي
laba qof buu iska soo qaaday ama saddex qofba uu jeexdhulka u jeexay saa hadday noqoto maxaad samayn lahayd ka doodi markuu arka meeshaas hadday galla ka gasho iyo meel nagana ka gudbato kor wadana soo jeex wuu garanayaa qof weyn wadkii waa yaqaanaaye markuu muddo 3 saac ama 4 saac barnaamijkii iyo hawshii doodii ku jiro 3 mid baa u soo bixi inay asaga ku rugmayso hawshu wuxuu usan ka helin meesha inuu xogaa luflufa ka helayo oo wixii loo kala jari doono iyo inuu asagu qaadan doono 3 mid baa u soo bixi 3daas mid baa u soo bixi kolku dad xogta dhammaystiran qaato haddana aysan tagin geedka weyn ilaa xal yeedaa intaadan geed weyn tagin geed yar la tagaay dadka aqliga u saaxiibka ah la tasho qof iyo laba sida u bandhig ni waan ka hadlay arintaas waan niqaashay waan dooday waxana ii soo baxay sidaad u aragtaa asna wuxuu ku sheegay kadibna salaad istikhara tuko inta marka dhamaystirato haday ku soo baxdo codkuna uu u baato inaad meesha waxba ka helin dib u iska tagi inaad waxba ka doorto waad iska tagi laakiin adoo inta midna ma samaynin haddaad iska soo tagto deebaad kala kulmi haddaad doodi lahayd waxa ku soo bixi lahayd meesha inaad nacaf ka helaynin qaadada keenin dil ceebteeda tagi meesii waxa la ninkii waa u daayay wixiisi yaan la baranin waxaan ka faa'iideynaa maahdan amada waxa laga ad ka faa'iideysaa laba dhinac kow qof jilcilsan oo la iska maro haddii dagaal lagu soo aadana la dili karo ha noqonin qof adag oo waxa ficil labaadkiisaba iska celin kara horta noqo sida noqon kartaa isdhiso xagga aqoonta iyo maskaxdana iska dhis xagga tababarka iyo jismiga iyo awoodana iska dhis oo wax iska celin kara noqo waa kow nin gartiisa yaqaanana noqo oo qof dhabaalo qof kolba meel ku ceebo wax noqonine wax kasta oo qabsanayso ka dood مثلا reer baa rabtaa inaad samayso iyo guur qofka aad rabtaa inaad guurka la samayso la fadhiiso marka hore xogteeda soo raadiso day gabar tahay aad xogteeda soo baadho haddii wiil yahay xogtiisa aad soo baadho naftaada ku siiso qofka inaad guri la day karto kadib waxa weeye la niqaash wala fadhiista marka wada fadhiisataan barnaamijyada adiga ka dhex guuxaya iyo waxa is leedahay waa laga maarmaan ka wada hadla sidee qofku wada fadhiisateen adigu sibaad rabtaa wax ku maamusho weydii qofkan soo asagu rabo qofku ku waramo oo xogta iyo sida doonayo iyo waxa uu rabo reerkiin in lagu maamulo uu ku sheego adaguna wax rabtaa u sheeg 3 mid baa soo bixi inaan heshiin karin qof ay wada socon kartaan qofkan uusan ahayn iyo inuu ku soo baxo qof aad isku hadaf tihiin oo wada socon kartaan iyo inuu ku soo baxo qof aad wax soo gurguurin kartaan oo waxa weeye bal si dhexdhexaada ku wada maamuli kartaan de rabitaankaaga oo dhammaystiran qof leh inuu noqdo iyo ruux rabitaankaaga aad uga fog oo waxa weeye isku iman karin inuu noqdo iyo inuu noqdo qof aad waxaad uga soo tanaasusho asagana ka soo tanaasula oo meel dhex wax ku iman kartaan adigoo og meeshu hamigiisi iyo hawadiisi iyo ay marayaan laakiin inta midna adoon ogeyn hadaad tiraado waan jecelahay ka aad ku dhamaysataan dhawaan khatar baa imanaysa oo laba fikir oo kala fog oo nimbo uu mid watay ayaa dhawaan sardii doona waxa la yiraahdaa qof madax ku socda iyo ku minja ku socda isku mirin diimaan qof madaxa ku socday yaa minja ku socda kaas u timaadaan tamaam mas'uul faantaa Soomaa isma fahmi kartaan marka barnaamij kasta oo samaynayso intaad kaliya horta ka niqaashto horta yaa u baahan tahay qofka aad u baahan tahay isweydii qofkii aad u baahan tahay isweydiisa haddana asaga oo la tag kala sheekaysa marka